mas-uuliyiinta ururka Alpha Trust Organization oo ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen in muddooyinka soo aadan ay Muqdisho ka bilaabi doonaan mashaariic badan oo lagu caawinayo dadka dhibaataysan gaar ahaan barakacayaasha agoonta iyo ciyaalka darbijiifta ah ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Daahir Cali Kulmiye oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa sheegay in haatan la joogo waqtigii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee jira dalka dibadiisa ay caawin lahaayeen dadka danyarta ah ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya. Okeeni hoy xaq buu nagu leeyahay waxaan halkan u nimid anigoo ku hadlaya Alpha Trust waa halkan u nimid dadka dhibaataysan isbitaalada inaan wax u qabano. bukaanada ku jira isbitaalka Kaysanay ayaa ururka u ololeeya arrimaha bulshada ee Alpha Trust waxa uu gaarsiiyay deeq lacageed. xubnaha ururka Alpha Trust ayaa booqday bukaanada xanuunada kala duwan qaba ee ku jira isbitaalka Kaysanay waxaana dadka xanuunada la ildaran ee ku jira isbitaalka Kaysanay isugu jiraan haween, caruur iyo qaybaha bulshada. madaxa caafimaadka isbitaalka Kaysanay Dr. Xaaji Muuse Xasan ayaa ugu mahadceliyay ururka Alpha Trust deeqda lacagta oo ay soo gaarsiiyeen bukaanada ku jira isbitaalka Kaysanay. bismillaah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ku hadlayo codka agaasimaha isbitaalka Kaysanay kan agaasimo ku-xigeenka isbitaalka Kaysanay kan dhammaan mas'uuliyiinta isbitaalka Kaysanay dhammaan shaqaalaha isbitaalka Kaysanay waxaan maanta ka mahadcelinaynaa deeq lacageed ee soo gaartay taasoo ay sida u jeedeen ayaga ay gacantooda ku qaybsheen Alpha Trust Organization Company runtii ayagana kulli uga mahadcelinaynaa gaar ahaan walaalaha nooga yimid UK ugu horeeyo gudoomiyaha Daahir Cali Kulmiye waxaan leenahay kulli saamaha aad soo qaadeen ilaahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo waxaad u soo qaadeen waa walaalihiina. ururka ka shaqeeya arrimaha bulshada Alpha Trust dhawaana mas'uuliyiintiisa sarsare ee dalka dib ugu soo laabteen ayaa bilaabay howlo oo ku gargaaraya dadka danyarta ah ee ku tabalaysan caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee deeqda raashinka uu gaarsiiyay ururka Alpha Trust ayaa ka mahadceliyay. maanta waxaa la siiyay sokor, bariid, bur iyo saliid goosarkayna. تمرتنا وجدتها تمرنا معك تمرنا واخبنا انت ما كنت تدري جاير لي علاسي qoysaska barakacayaasha ay ku jira xerada badbaada degmada wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa ururka Alpha Trust ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada muddooyinkii ugu dambeeyayna magaalada Muqdisho ka waday gargaar bini'aadanimo ayaa xerada barakacayaasha ee badbaada qoysaska ku sugan waxa uu gaarsiiyay deeq isugu jirta dhar iyo bustayaal. xubnaha ururka Alpha Trust ayaa waxa ay caruurta ku jira xerada barakacayaasha ee badbaada ay u sameynayeen adeegyo ay u baahnaayeen kuwaas oo ay ka mid ahayd in timaha ay u xiiraan cidiyahana ay ka jaraan si ay dadka ula ciidaan isla markaana ay ka mid noqdaan caruurta Soomaaliyeed ee u diyaar garoobaysa farxadda munaasabadda ciidda Soonfureed. ma sha Allah maanta deeqana soo gaartay walaalahayna Soomaaliyeed waana la soo baruur deeq ilmaha madax waana lagu jaray anagana ku beertooyin waana la sii ma sha Allah hadda inta taal daranahay afur la'aan iska nahayo badar la'aan iska nahayo biyo xumana hayso ma sha Allah maanta waana dadaaleen insha Allah qar Allah sii saayisi karoona Allah noo saqo. halkan hortiina waxa ka muuqda arday gaaraysa 90 arday ah oo wali iskool aan tagin oo loo laasanaa budgetkii wax ku tagi lahaayeen falaa alxamdu waxa noo yimideen ururka Alpha Trust Organization oo gudoomiye uu ka yahay Daahir Cali Kulmiye oo na soo gaarsiiyeen inay ardaydaas wax ka bixiyaan inta karaankooda ah ay fiigana ka bixiyaan hatta ay ka bixiyaan in ay ilmihii aan dharka awoodin hatta ay ka bixiyaan yaa maanta na soo gaaray waxa aad ugu faraxsanahay caawinta noocan oo kale ah oo markii ugu horreysay oo dibadda nooga timid ay tahay waxaan ku faraxsanahay qaabka ay noogu yimaadeen ee sida noola soo xiriireen in contactiyada ay sameeyeen ardadan anaga gacanta ku hayno kuwa ka badanna waa haynaa laakiin waa dufcadii ugu horreysay oo reer dibadeed inay noo yimaadaan ay bixiyaan iyagoo groupka ku socda ah Alpha Trust Organization waxaan aad ugu faraxsanahay Daahir iyo teamkiisa inay mar labaad iyo mar saddexaad ay arkaan baahida waxbarashada ee wadanka ka taagan iyo ay nala fahmeen
go-aankii aan 2 sano ka hore u qaadanay ee ahayd in aan arday wax ka bixino oo min ilaa ardayga ilaa jaamacad uu ka gaarayo aan wax siino inay iigana nala damqadeen ay nala arkeen xanuunka uu leeyahay waxbarashada ardayda mustaqbalka u ah wadankan indhaha u ah oo soo korayso oo wali waxbarashaan haysan ururka Alpha Trust Organization ayaa deeq kala duwan gaarsiiyay caruur isugu jira agoomo iyo kuwa indhoolayaal oo ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana caruurtaasi ay gaarsiiyeen dhawaan dharkii ay ku ciid lahaayeen iyagoona sidoo kale maalmaha ciid gaarsiiyay lacag ay ugu talagaleen caruurtaasi ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa sidoo kale ay ururkan gaarsiin caruurtaasi agabyo kale oo muhiim u ah noloshooda kuwaas oo aad u soo dhaweeyeen caruurta halkaasi ku dhaqan qaarkood iyo dadka gacanta ku haya. It is just another morning. My siblings have gone to school. My parents have gone to attend to the daily goals. All alone, I am left at home with no one